Bismillaahirrahmaanirrahiim. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee Wadani TV daawado waa barnaamij aad u fiican oo baaqa oo nagu magac daray maanta waa maalinta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay hiilada baarlamaanka cusub. intaa gelin aan dhegaysano haystan oo aan ku bilowno. runteed hiibo noora waxaa xaqiiqatan haddii fursadan ay idinka fakato in dalka dhan inaga qaadayo oo qaramada midoobay la wareegayaan. waa baaqa aan u dirayo dhammaan baarlamaankan cusub oo aan doonayay inay ka faa'iidaystaan. waxaa maanta marxaladan oo kale soo martay adduunka dowladdii la dhihi jiray Hungary 1945 markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka iyo Bulgaria. waxaa dhacday in qisadani ay labada dal aad u burbureen oo ay ciidankoodii inta badan iyo dagaaladii Naaziga lagula dagaalamayay ay la hareen. waxaa dhacday in loo kakabay oo caalamka u kabkabay dowlado ku meel gaar ah sida kuwa Soomaaliya oo kale. haddaba markii ay dhammaatay ku meel gaarka ee tii rasmiga la aasay ayaa waxaa soo istaagay laba musharax oo 4 sano haystay oo madaxweynayaal ka ahaa oo musuqmaasuqyo lacaga badan ay dhunsadeen. waxaa kaloo la soo istaagay dad aqoon sare ku leh oo adduunkana laga yaqaan oo laba nin oo kaleento oo jaamacada caalamka ka dhigo. waxaa dhacday markiiba in ay caalamka u cadeeyeen oo dhaheen haddii aad rabtaan dowladaba waa inaad taageertaan bulshada caalamka oo musuqmaasuqyaasha ah iska dhaaftaan oo aad doorataan dadka aqoonta iyo tayada leh ee caalamka ictiraafsan yahay. dheg uma ay dhigin. waxaa dhacday waxaa ka faa'iidaysatay eraygii Bulgaria halka Hungary ay ninkii lacagta watay ee madaxweynaha ahaa ee musuqmaasuqa lagu eedeynayay ee baarlamaankii doorteen. Bulgaria waxa ay dooratay ninkii ay bulshada caalamka farta ugu fiiqaysay. waxaa xaqiiqatan inay 2 sano kadib Hungary markii ay fashilantay oo ay baarlamaankii waxay cunaan waayeen caalamkiina uu ka gaabsaday maadaama ay fariyadoodii iyo fikradooda aysan qaadan in ay burburto oo 2 sano kadib haddana dowlad dambe cusub oo ay noqotay ninkii ay reebeen markii horeenta in lagu soo celiyo. Bulgaria markiiba way ka faa'iidaysatay oo waxay samaysay isagoo oo siiyay lacaga aad u fara badan oo musuqmaasuqa baarlamaanka musuqmaasuqa ku keenay ayay dhaheen waxay doorteen ninkii caalamka waxayna noqdeen qaran taagan. markii uu weydiiyay lacagihii ayaan u baahnaayna waxay dhaheen lacagta oo cunay. waxay gashay taariikh ilaa xilligana amnigii iyo dalkiiba uu ku hagaagay. maanta waxaan barnaamijkan ugu magac daray waa maalinta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay hiilada baarlamaanka cusub. macnaheedu waxa weeye haddii aad jaranjaradayda ka dhacdaan waxaa xaqiiqatan inaad khasaaraysaan oo aad noqonaysaan kuwa caalamka indhaha ay ka qabsadaan oo sidii ku dhacday Hungary oo kale.
marka sidaa aan kuleeyahay waxa weeye soomaaliya maanta awood ma leh dhaqaalahan iyada ma haysato. waxaa dhaqaalaha soomaaliya in lagu dhiso u baahan laga rabaa bulshada caalamka. haddii bulshada caalamka fikradooda aad daba martaanna waxaad noqonaysaan inaanan dalka dib dambe laiskugu imaanin oo balenbi gacantana naga geliyo oo qaramada midoobay ay noqoto meel ay soomaaliya ay hogaamiso. waxaa markaa aan doonayaa baarlamaankanow nimanka lacagaha soo dhacay ee 20 kun idinku baryaya ka qaata, laakiinse u hoylaya qaranka idinkana aad wax ku noqonaysaan doorta dadka ay bulshada caalamka rabto ee dhaqaalaha ay ku helaysaan dalkana lagu dhisanayaan. 270 baarlamaanka ah haddii aad tayo leedihiin iyo haddii iidan lahaynba, haddii aad heshaan hoggaan dhaba oo aqoontani ka dhisan oo bulshada caalamkana ay taageerayso, waxaa dhaba inaad qaran noqon kartaan, bulshadana aad u heyliseen, idinkana aad isu heyliseen oo ay jirayso dowladnimo qaran. haddii laakiinse neef jeclaysi iyo qabiil uu noqdo ee 4 musharax ee musuq maasuqiinta ah ay ka mid yihiin shariif xasan iyo shariif maskiin iyo cabdiweli iyo farnaajo aad u ololeysaan, waxaad noqonaysaan kuwa daadka qaada. 4 rid calaamad casan ayaa saaran oo ah caalamka inay corruption ka galeen. 270 milyan ay bixiyeen bulshada caalamka lama yaqaano meesha ay geeyeen. wayna idin horkeeni doonaan bulshada caalamka waxa maanta soconayo oo dhab oo xaqiiq ah oo kaliya oo caalamka idinka aqbalaya waa Professor Axmed Ismaaciil Samatar. haddii aad gaftaan oo qof kale ah keentaan ragga kale ee cusub ma aha dal ay bulshada yaqaanaan caalamka. bulshada caalamka waxay diyaar maanta ku leeyihiin in aad Professor Axmed Ismaaciil uu noqdo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed, iyagana ay kula taageerayaan dalkana dib uu usoo dhismaayo, qarankiisuna uu kusoo laabanayo. baarlamaankana markaasayto wax dayaa lagama baahno, waayo hoggaan dhaba oo siyaasadeed oo aqoon-yahana ayay heleen oo keeni karo wasiiro dhammaystiran oo aqoon leh. markaana waxay noqonaysaa in aad idinka xataa hoggaankaasayto wixii dhexdiina ah uu xaliyo oo ah inay aqoonta ina hagito oo aad raacdaan. haddii kale oo isku daydaan qof kale oon professorka ahayn waxaad raacaysaan daadka, waxay noqonaysaan idinka qudhigiina inaad khasaartaan. baarlamaanka ka qaata nimankan musuq maasuq ee lacagaha dadka ka dhacay, idinka ayaa xaq u leh oo shacabka maanta matalaya jeebka gashta dantiina guud ha noqoto qaran inaad noqotaan oo ah bulshada caalamka aad garab istaagtaan oo aad qof aad la soo barbardhigtaan aysan jirin oo professorka si shuruud la-aan aad ku doorataan. ragga kale ee cusub ma garanayaan bulshada caalamka, niman ay aqoon u yihiinna ma aha. professorka wuxuu dhigaa in ka badan 12 jaamacadood caalami oo dunida caana, buugaag badan oo dunida ka caanka ah, yar iyo weyn adduunyadan inteeda badan way garanayaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar. waxaana noqonaysaan dad qaran raadinayo oo bulshada ay u heliso. iska dhiga qabiil oo halkaa iska dhiga. haddii professorka idin dooran waxaad noqonaysaan kuwa daadka idin qaada oo dhammaantiina fashilma 2 sano kadib ultimate professorka unbaa soo noqon doono oo dad bisa la keeni doonaa. haddii jaranjaradaha ka dhacdaan waxaad noqonaysaan kuwa sidii Bulgaari dagaalkii 1946 Hungary ay ku dhacday oo kaleento. ultimate waxaa la keeni doonaa professorka oo dad taageersan lahaa, idinkana waxaad noqon doontaan kuwa musuq xaqdaradii ay dad ay qaado oo macnaheedu uu yahay inaad raacdaan dadka. wax kaloo bulshada caalamka ay yeelaysa ma rabaan. 4 musuq maasuq ma doonayaan. dadkan cusubna ma yaqaanaan, waxa ay yaqaanaan waa professorka, waa inaad ku taageertaan. waana kan isagoo hadlayo. To make it together. The United States as a leader of the West cannot make the future on its own or on the basically credit of the West, while others are essentially just objects of the making of that future. Nor can the Muslim peoples change the world in the way they want to. Professorka ayaa maanta caalamka mid laga yaqaano oo idinkana aad magac iyo ku noqon kartaan qaran haddii aad isku daydaan. dhinac kale oo raacda waxaa idin sheegayaa 2 sano kadib inaad arki doontaan waxa uu wadani sheegana isha kama marantaan. waxaana idinkaga tagayaa idinku soo gabagabeynayaa inaad dhageysataan heesta aan Hiba Nuura ay nala hadlayso ee qarannimo. mahadsanidin.
waxaan idinkaga tegayaa sidaasayto oo inoo kulan dambe taa waxaan inugula dardaarmayaa tareenka ha ka dhicina baarlamaanka cusub oo noqda kuwa isku duuban oo bulshada caalamka ku taageero waana barnaamijka aan u bixiyey maanta waa maalinta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay hilada baarlamaanka cusub wax kastoo aad tihiin iyo kuwa leh iyo kuwa aan tayo lahaynba waxaa dusha u dhiganayo idin hogaamin kara oo aad ku hoos gaban kartaan waa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo bulshada caalamka diyaar in la tahay ha isku dayina 40 masuq ee ka dhacay tareenka in aad isku nin jeclaysataan wax soconayna ma aha dadkii lacagta bixinayay ee ay ka sugaysaan mushaar ama lacag inay idin siiyaan waa bulshada caalamka Soomaaliya dhaqaale maanta uma yaala meel ay dhigteen oo wax ay ku qabsadaan sida awgeeto tareenka ha ka dhicina qabsada waa inoo ballan iyo bilaal shuruud la'aan oo Professor Axmed Ismaaciil iyo bulshada caalamka oo idinku taageerto iyo wadani TV oo idin leh qarannimo الله سبحانه وتعالى أن قبري يا إن أنقرنا الله دبأ إيه بروفيسور كم مدحوينا إنه لما انتبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.